Assalaamu calaykum. Walaal ha ka jeedsan warqadan adigoon aqrin ilaaha ku naxariista adduun iyo aakhiraba. Mahad qaali ah alle ayaa iskale. Ka faa'iidayso fursadan qaaliga walaalayaasha muslimiinta ahow. Warqadani waxay ka timid Sacuudi Carabiya waxayna ku socotaa dadka islaamka ah oo rag iyo dumarba leh. Sheekh Axmed Daad oo ah ilaaliyaha qabriga Nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa waqti habeena markuu tukaday salaatuleyl kadib nabigu calayhi salaatu wasalaam ayaa yiri Sheekh Axmed Daadow 60 milyan oo qof ayaa dhimatay oo qof kamid ahna jannada ma gelin. Sheekh Axmed Daad aad buu u baqay sababtoo ah dadkii islaamka oo aan raacin jidkii nabiga calayhi salaatu wasalaam. sidaa darteed dumarku ma ogola inay raacaan raggooda markay wax faraan, cawradooda ma asturaan. dadka maalqabeenka ahina xoolahooda masaakiinta islaamka in yar wax kama siiyaan. dadka xajka aadaana ma tukadaan waqti kasta. nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi Sheekh Axmed Daadow u sheeg dadka islaamka ah si ay u wariyaan una qaybiyaan fariintan. qofkii qaybiya oo badiyo waraaqaha ku daabaca riyadooda ama niyadooda waxay ku qabtaan way arki doonaan haddii ilaah idmo. qofkii isagoo dayn qaba warkan baahiya ilaahay baa ka saacidayo inuu deynta iska bixiyo. Sheekh Axmed Daad haddii waxa aan sheegayo been yihiin alla ima naxariisto jannadiisana ha iga dheereeyo. muslimiinta oo dhan ha raacaan diinta islaamka waxay farayso hana ka haraan waxay ka reebayso. qaraabada iyo dadweynuhuna ha isku naxariistaan ilaahayna dembi dhaaf ha weydiistaan. isniin walbana ha soomaan. qofkii warqadan 30 koobi oo dadka islaamka u qaybiya naxariista ilaahay buu helayaa. waxa uusan weligii arkina wuu arkayaa. warqadan iyay noqon wax meel la iska dhigo. qofkii muslim ah oo arka waa inuu badiyaa oo muslimiinta gaarsiiyaa. nin la yiraahdo kitaabi markuu warqadan arkay wuxuu u dhiibay gabadh xoghayn u ahayd waxayna ka qortay 29 koobi wayna qaybisay. nasiib wanaag maalmo gudahood ayay heshay waxaynan weligeed ku riyoonin. nin kale oo la yiraahdo Sayma Salmaan markuu warqadan arkay armaajo sanduuq ayuu ku riday wuuna ku hilmaamay shaqadiisiina waa laga eriyay. balse markuu waayay shaqadiisii ayuu xasuustay warqadan oo misana 120 koobi ka sameeyay. falkaas wanaagsan kadib ayuu helay shaqo ka fiican sidii hore. nin kale markuu warqadan helay wuxuu ka soo qaaday waxaan macno lahayn wuuna jeexjeexay. nasiib darro isla maalmo gudahood ayuu si dhib badan u geeriyooday. sii gudbi adigoo niyeysan wixii aad rabtay inaad hesho ha ka caajisin walaal. assalaamu calaykum.